dastuurkii hore aynu u haysano iyo in la dhameystiro labada midnaba kamay fursanahayn marka hadda waxaynu qaadnay wadada ah dhameystirka dastuurka cutubiyada hadhay in laga doodo la dhameystiro cutubka afraad doodihii laga qabay oo afar ahaa oo ogeydeen oo ahaa habka ra'iisul wasaaraha xilka looga qaadayo madaxweynaha doorashadiisa oo tooska oo dadweyne iyo saddex xisbi in xisbiyadii lagu soo koobayna heshiis baa laga gaaray waa aragteen oo si fiican bay gudida dastuurku gudida madaxa bannaan iyo gudida la socodka labaduba run ahaantii ay uga soo shaqeeyeen una soo sii qadeeyeen saddexdaa qodobna ay ku soo dareen ka afraad oo ah maamulka doorashada dood baa ka furnayd hadday tahay goloweynaha iyo hadday tahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed kale ee danaha kale marka hadda waxaynu qaadnay wadada ah dastuurkii inaan dhameystirno in laga doodo oo la dhameystiraana waa wax munaasib ah waayo dawladnimo dastuur bay ka unkantaa shuruucda kale dalku ku dhaqmaya kala duwanina dastuurkay ka farcamaan marka in la yiraahdo dastuurku sidiisii ha u yaalo waxaynu ku noqonaynaa un dhaqankii Soomaalida ee ahaa Soomaalidii hore dimuqraadiyadda fikirkii ka haysatay waxay ahayd haddaan reer hebelnahay waa ka kacnay shirka haddaan annaga ra'yigeega aan la qaadanahayn waanu ka dareerno waanu ka kacnay laakiin innaga habka dawladnimada casriga maanta ku jirta waxa weeye in la doodo aqlabiyada la raaco waana sida doorashooyinka kala duwan ama inagu xildhibaanada haddaan ku soo baxnay ama madaxweynaha lagu doorto ama golaha lagu meel mariyo ama shirgudoonada lagu doorto ayay tahay run ahaantii waan akhriyay kala badh ilaa hadda markii la qaybiyo waan maqnaayay intii aan imid shantan cutub ee dambe iyo gogoldhigooda iyo cilmi baadhistii ay ku soo sameeyeen labada guddi waan uga mahad celinayaa shaqada badan ee ay geliyeen xubnaha ka tirsanaya kale iyo dadka Soomaaliyeedba waxay ka marakacayaan shaqo fiican in laga qabtay si wanaagsan run ahaantii looga soo shaqeeyay ta ugu yare aad ka fahmi kartaa waxa weeye dastuurku ma u baahan yahay siiqadayn waayo nuqulka Soomaaliga inuu haysanay iyo nuqulka lagu turjumay af Ingiriisiga meelo badan oo ay ama iskaga hor imanayeen ama aan cadayn ama siiqo u baahnaaba ayaa jirtay shaqada ugu yare laga qabtayna waa ugu weyn noqonaysa waa siiqadaynta masalan garyaqaanka guud ee dawladda nuqulka Ingiriisiga wuxuu ku sheegayaa Attorney General haddana xeerlaalihi guud Attorney General baa dunida ku taqaana kuna sheegaya halkanna waxa uu ku kala oranayaa Soomaaliga garyaqaan iyo xeerlaalihi ma meelaha ay dastuurka hadda lagu saxay habka garsoorka lagu saxay awoodaha baarlamaanka lagu kala qaybiyay nidaamka federaaleynta lagu sii faahfaahiyay meeqaamka Muqdisho iyo caasimadu sida ay noqonayso iyo khiyaarada looga baahan yahay lagu xusay marka in hawlaha qabyada ay noo ahaayeen yaalay la dhameystiro oo aynu ka boganno oo la meel mariyaa waa waajib dastuuriya inagana ay nasaaran baarlamaankana lagu doortay madaxweynihii ballan qaaday iyo musharaxiintii kale ku tartamayay inay dhameystirayaan dastuurkana lagu doortay marka anigu waxaan isweydiiyaa dadka diidan maxay diidan yihiin ama xildhibaanada Soomaaliyeed ee diidan maxay diidan yihiin aad baan runtii u akhriyeeyo waxaan garan waayay gobol ama deegaan Soomaaliyeed oo uu lid ku yahay dastuurku ama wax dantooda ah aanu sheegahayn waxa kale oo garan waayay reer Soomaaliyeed oo uu dastuurkan la dhameystirayaa lid ku yahay ama afartii cutub ee hore ay lid ku yahaynay oo ay diidan yihiin waxaan xasuustay nin loo oran jiray Frederick Lugard oo Nigeria dalka la yiraahdo xukumi jiray oo mustacmaradii Ingiriiska ahaa ayaa qofka Afrikaanka ah uu sifeeyay oo inaga kan Soomaalida ahayna aynu qayb ka nahay waxa uu ku sheegay waa dad firfircoon waa dad geesiyiin waa dad dhiiran waa dad ciyaaraha iyo heesaha iyo suugaanaha kala duwan jecel oo maaragtay ku tartama ha ahaatee Afrikaanku waxay ka siman yihiin waa maalin u joog maalinta waxa taagan ayaa mustaqbalkooda iyo ummadahan sida ay u jirayaan ay ku qiimeeyaan tusaale nool ayaan anigu ka hayaayo Somaliland dastuurka markii la meel marinayay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo madaxweynaha Somaliland ahaa run ahaantiina aniga qiimeynteeda political philosopher ahaa dhinaca siyaasadda iyo rogrogideedaba ayaa wuxuu yiri dadkan maxaa isku hayn kara dastuur u samee
dastuur baa nin loo yara oo suudaaniisa wasiirka arrimaha dibadda hore Suudaan oo sharci yaqaan ahaa buu soo kireystay wuu ka shaqeeyay culimadii iyo dadkii kala duwanaayay aqoon-yahankan wuxuu waxa ku biirin kartaa ku biiriya dadkii mucaaridka ahaa ee ka soo horjeeday oo siyaasiyiinta ahaa way diideen dastuurkii wuxuun bay u diideen maxamed xaaji ibraahim cigaal baa shaar leeg tolanaya oo isleekaysiinaya musabixa kamid ahaa saleebaan oo imika gudoomiyaha guurtida kamid ahaa siyaasiyiin kale oo xisbiyada ahaa oo ka dambeeyay ayaa kamid ahaa waxay u diidayeen shaar baa tolanaysa ilaahay amarkiisa 2002 markii la ansixiyay ay maxamed xaaji ibraahim cigaal dhintay nimankii diidanaaba u aayay nin waliba markuu ku fadhiisto muuse madaxweyne ku noqday kulmiyo ka dambeeyay madaxweyne ku noqday ka horeeyay saleebaan gudoomiyaha guurtida ku noqday kulli waxay leeyihiin waa dastuur wanaagsan ya tibin kale way qof yiri dastuurkan waxba ka sii ahay ma jirin waaye shalay maxaad ku diidanay waadiga shalay diidanaaye bal deegaankaaga miyuu wax ka sheegay reerkaaga miyuu duray adiga duulaan miyuu kugu aha imika waxa la leeyahay shaar dastuurkii xasan sheekh maxamuud baa tolanaya markaynu akhrinayna si gaar ah ama madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ugu tolmayo ama reerka uu ka soo jeedo uu ugu tolmayo ama deegaanku ka soo jeedo uu ugu tolmayaana meeshii kuma taalo waxa laga yaabaa ragga maanta qaylinaya diidaya maaragtay diidan berito inay ama alfadaan inay madax ku noqdaan ama mas'uuliyiin kale duwan ku noqdaan marka ayaana inaga ahaan intii Frederick Lugard oo Afrikaanka ku sifeeyay ama aniguba aan goobjoog uga soo ahaa dhaxalka uu ka tagay nidaam dadkii uu isku hayn kara cid kalena calfatay imika dastuurka qudhiisa hadaynu dhameystirno cidii calfan doonta Ilaahay baa og waxaan markaa ugu baaqayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed guud ahaan iyo xildhibaanada walaalaheena hal laga doodo xubnihii guddida dastuurka ka soo shaqeeyay ayaa qiraya in si fiican looga soo shaqeeyay run ahaantii waan ku halbalyeynaa guddiyada ka soo shaqeeyay iyo la tashiyadii la geliyay iyo meel lagu diidaa inaanay jirin haddii fikir laga qabana goluhu uu inoo yaalo oo inoo furan yahay waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum